dood wadaagii soo qabanqaabiyeen isku tagga ururada bulshada rayidka oo kaashanaysa madasha Forum for Election kaasi oo ku saabsanaa sidii loo xaqiijin lahaa ka qaybgalka doorashooyinka ee haweenka oo maanta lagu qabtay Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha guddiga xaqiijinta doorashooyinka odayaal siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cusmaan Muxiidiin Shaatax kaasi oo sheegay inay muhiim tahay in la xaqiijiyo arrimaha doorashooyinka haweenka iyadoo laga qayb gelinayo waxa uuna tilmaamay sida ay ku suurtageli karto barnaamijkan oo aan wada qabanayna anaga iyo Forum for Election kuna saabsan sidaan idin sheegay sidii loo xaqiijin lahaa ka qaybgalka arrimahan siyaasadda iyo ka hortagga khilaafyada ka dhalan kara doorashooyinka haweenka iyo dadka laga tiro badan yahay ama aan dhahay dadka minority laakiin waxaa muhiim ah inay doorashooyinkan ay noqdaan doorashooyin shacabka Soomaaliyeed iyaga ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxda ay u dooranayaan xilkana ay yihiin kuwa iyaga in xisaabtan loo baahan yahay xisaabtan ma imaan karo haddii aadan marka horeba aadan talo ku yeelan ama aadan qayb ka ahayn sidii wax u socdaan ama doorashada sidii loo wado marka inaan marti laga naqan habka doorashada loo wado si u socoto oo dadweynuhu ay talo badan ku yeeshaan si hadhowtay ugu sahlanaato inay la xisaabtamaan dadkay u dooran doonaan inay xilka u sii hayaan ama u shaqeeyaan muddada kooban ee la rabo inay u shaqeeyaan haddii 4 sano soo socoto waa in doorashooyinka kuraasta haweenka lasoo horumariyo si loo xaqiijiyo inay doorashooyinkaas ka qaybgalka haweenka marka ay noqdaan kuwo waajibkii laga rabay mas'uuliyiinta ay fuliyeen xaqiijinta ka qaybgalka haweenka qodobkaas aad muhiim u yahay in marka hore ay noqdaan doorashooyinka kuraasta la soo hormariyo marka labaad waxaan oran lahaa oo aad muhiim u ah marka hore in la diiwaan gelinba kursiga qabiilkii 3 kursi leh oo aanan ku soo darin xubinta haweenka hadduunan ku soo darin in la diiwaan gelin oo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed heer federaal ay diiwaan gelin kursigaas dadka u tartamaya ilaa laga soo xaqiijiya 3 kursi in qof haween tahay labaas arin waxa is leeyahay inta badan madaxda golaha wada tashiga qaran dhowr mar aan la wadaagnay laakiin kuma aysan soo darin habraaca kuma aysan soo darin hadaladooda dambe waxaan jeclaan lahaa arrintaas in aad loo xaqiijiyo oo labadaas arrimood waxaan hubaa haddii si ay loo fuliyo in wax badan ay xalin doonaan arinta dadka laga tiro badan yahay runtii aad ay muhiim u tahay hadda markaad fiiriso guddiyada la dhisana badanaa kuma laha xubintooda kuma laha waan waxyaabaha aad ugu muhiimsan inay xubin ku lahaadaan si loo maqlo codkooda si loo ogaado xaalkooda meesha uu marayo iyo sidii marka ay noqdaan nidaamka doorashada uu u siiyo xaq ay lahaayeen ama ay lahaayeen ka qaybgalkii ugu badnaa inay ka qayb galaan marka taana waxaa is leeyahay aad ay muhiim u tahay in maanta aan halkaan ku falanqeyno talooyin badan aan ka soo saarno talooyinkaasna aan xaqiijino oo dalada Sonsa iyo Forum for Federation waxay xaqiijin doonaan inay talooyinkaas gaarsiiyaan meelihii ugu habboonaa ee wax ka qaban lahaa inay gaarto kaliya waxaan rabaa inaan baaq halkaan ka jeediyo oo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo inta la shaqeysaba runtii dadweynaha Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin in dalka doorasho ka dhacdo taa ayaa jawaab u ah wax kasta oo dhibaato ah oo dalka maanta ka jira sida loo xalin lahaa inaana lagu mashquulin waxaana doorasho ahayn oo doorashadu ay noqoto midda ugu habboon ee dadka ay ku qanci karaan in loo qabto oo ay ka soo baxdo doorasho lagu kalsoonaan karo oo dowladda dhalan doonto sii karto kalsoonida shacabka horta taa ayaa aad muhiim u ah in aad loo wada shaqeeyo arrimaha kale soo raaco waxay u baahan yihiin in si gaar ah loo xaliyo ama wadooyinkii ku habboona in lagu xaliyo loo maro laguna xaliyo oo aan mar kastaba aan la isku qasbin ama la isku qasin waxyaabo aan isqaadi karin dalku doorasho aaday doorashooyinku way bilowdeen in la dhameystiro waxaan ahayn oo furan habeeraatee ma jiraan waxa la wixii caqabad u keeni kara doorashada iyo qabsoontana in laga waantoobo oo laga leexdo ciddii si gaar ah u isticmaalayso rabitaankeeda gaarka ah rabta inay u isticmaasho nidaamka dowliga ama nidaamka kalaba waxaan leenahay inaa ka waantoobiin Allah idinku duwo geestooda waxaa goobta ka hadlay Maandeeq Xaaji Cilmi oo ku hadlaysa magaca Forum for Election
iyo Madiine Caamir labaduba waxay sheegeen in la xoojiyo dadaalada lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee 30%. haddii ahaan lahaayeen qoondada haweenka, haddii ahaan lahaayeen kuraasta ay ka taagan tahay khilaafaadka, iyo haddii ahaan lahaayeen dalkan yaa u qalma inuu madaxweyne ka noqdo oo qaban doono ilaa debate ku saabsan heer madaxweyne. wadankan waxaan u baahannahay 4 sano oo soo socota inaan si aad iyo aad ula fikran uga fiirsano qofka aan u dhiiban doono hoggaanka. haddii kale haddana waxaan geli doonaa 4 sano oo ah dacwo iyo waxbaa naga khaldan iyo qofkaa lagama soo fiirsan. marka waxay ila tahay in aan casharo ka barano hoggaamadii hore wadankan soo maray, si aan anagana haddana u helno hoggaan wanaagsan ee wadankan ku hoga meel wanaagsan. wadankan sida ogtihiin wuxuu leeyahay arrimo masiiri ah oo qabyo ah, oo ay ka mid tahay dastuurka, oo ay ka mid tahay amniga, oo ay ka mid tahay in la furo Supreme Court ama maxkamad caalamiga ahayd ee wadanka. marka waxyaabihii maqan oo dhan in lagula xisaabtamo madaxda hadda joogta iyo in laga fakaro madaxweyne noocee ah ayaan u baahannahay oo wadankan samata bixin doona. kuraasaha haweenka badankood waxaa lagu xaqliyaa in ay hoos tagto tolka ayuu kursiga ka jiraa gabadha. tolkana waxa weeye odayaasha dhaqanka ah oo ah adeeradeen iyo aabayaasha. marka waxaan idinka codsanaynaa gabdhaha inaad fursadaha soo siisay, waana la soo arkay. waxaa tusaalena iigu filan kuraasta hadda dad ku fadhiya haweenka iyo ragga. gabdhuhu waxay ku noqdeen deegaan doorashooyinkii, mid isbitaal dhista iyo mid iskuul dhista iyo mid hooyo iyo aabba xanuunsan u raadinaysay ahaayeen fiisayaal loogu geeyo dabadda caafimaad. adinkana markhaatiya ka tihi si maanta aan u helno jawaab iyadana run ah oon u ogaano sidii isugu tashan lahaa, la isku garabsiin lahaa iyo wixii aan tala iyo tusaale aan iyaga uga tashan lahayn dhankooda. waxaan rabnaa wax cad oo aan ku duuli karnaan rabnaa. waa ku dhiiranaynay. dadaa waxay leeyihin lacag soo doonaya dadan lacag haysa. daan lacag haysta ku bixin maayo kursi aan rabo inaan dad ugu shaqeeyo. marka waxaan isleeyahay gabdhuhu ma sitaan faas dowladda lagu burburinayo ama diinta. waxay sitaan laakiin cirbad iyo dun ay ku tolaayaan dowladnimadii naga burburtay. saas daraaddeed gabdhaha waxay la tahay in la gaaray waqtigii maaragtay la siin lahaa chance ay ku iman lahaayeen, ay ku tusi lahaayeen maaragtay awooddeeda. qoray ma haysano, waxba ma haysano, laakiin khibradaan haynaa aan dadkeen ugu shaqeeyo. anigu weliba waxaan isbidayaa Hirshabeelle wejiga uu leeyahay maanta inaan ka bedeli karaa shabaab muddo sanad maximum 2 sano ah. gabdhaha kuraastooda haddaana la hormarin oo aan maaragtay la keenin in aan la diiwaan gelin rag waa ku raacsannahay. weliba waxaan kaloo ka sii rabnaa horta gabdhaha la tartansiiyo. gabdhaha marka la tartansiiyo maxay wuxuu dhahay prime ministerka reer Alaasiya wuxuu yiri gabdhaha kuraastooda waa lama taabtaan, waa inay jiraan ma jirayso. haddee war leetahay ma jirayso. waa in kuraasta la soo keenaa horta. waa in nabadgelyada maxaa la yidhaahdaa la xaqiijiyaa, nala hormariyaa gabdhaha. waxaan rabaa ergada yaa qaadaya sanadka hore inta la qaato diirada lagu qaataa meel lagu xiray yaa qaadaya nabadgelyadooda yaa hubinaya. waxaan kaloo soo jeedi lahay gabdhaha naftirkooda nabadgelyadooda iyo meel in la isugu geeyo ee la ilaaliyo ee la ogaado aan rabnaa. gabdhaha waxeeda haddaana banaanka ooli iyaana la baylihin yaan bannaankana la geyn. wixii naloo hayo ha naloo sheego haddeer intaana tilaabo qaado. nabadgelyadeenna waa muhiim, logisticadeenna waa muhiim, gabdhaha in meel la isugu geeyo waa muhiim. hadday intaas jirin anigu kulley uma socdo. guddiga qoondada haweenka uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa horey uga codsaday maamul goboleedyada inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee